galab wanaagsan waxaan anigoo ka mid ahaa wafdigii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaga soo laabanay safar howleed aan ku tagnay dalka Djibouti hadda muddo yar ka hor waxaanan halkaas kaga qayb galnay shirkii 38aad aan caadiga ahayn ay ku lahaayeen wadamada IGAD madaxweynayaashooda shirka wuxuu ahaa hal maalin wuxuuna u bilowday qaab laba geesoodyo ah oo marba ay laba dal gooni isu arkayeen kadibna iyagoo group ah oo kale ay soo arkeen halkaas oo looga sii gudbay shirka qaybtiisii weynaa ama plenary-ga ahayd shirarkaas laba geesoodyada ah waxaa lagu xaliyay arrimo badan oo culus oo ugu darnaa inta aan la gaarin shirka weyn dowladda Soomaaliya aad iyo aad ayay ugu diyaar garowday shirkan oo ay diyaar u ahayd in eedeymaha ay u soo jeedisay Kenya ay ku soo bandhigto oo kaga hadasho shirkaas hase yeeshee madaxdii IGAD ee halkaas joogtay waxay aad cadaadis noogu saareen Soomaaliya in arrinkan uu noqdo mid lagu xaliyo IGAD dhexdeeda oo uu noqdo mid laga gaaro wada hadal iyo is-afgarad oo halkaas aan arrimaheena ku xalino talaabada ugu horeysana ay tahay in xaaladda la dejiyo ama de-escalation waxa la yiraahdo oo hoos loo dhigo xiisadda Soomaaliya taas waa ay ogolaatay laakiin waxaanu ku xirnay shuruud ah in loo saaro guddi arrimaha ay Soomaaliya ka ashkatoonaysay waxay ahaayeen dhowr arrimood qaarkoodna aan idin kala hadli karno qaarkoodna aan ka gaabsan doono maadaama hawshaas ay wali socoto tan ugu culus oo ugu muhiimsan uguna maaragtay degdegta badan waxay ahayd mid ku saabsan jabhadaha ama jabhadda lagu soo abaabulay dalka Kenya dhexdiisa sida aan anagu qabno oo borderka dhinaciisa kale xuduudda dhinaceeda kale ku abaabulan taasoo IGAD ay go'aan ku gaartay in guddi xaqiiqo raadin ah loo saaro guddigaasna uu arrinkaas soo baaro arrimaha kaleeto oo ay Soomaaliya tabanayso waa wax lagu xallin karo midba siday maaragtay u kala muhiimad weyn yihiin oo lagu xallin doono diplomatic channels ama qaab diblomaasiyadeed u socon doono laakiin arrinkaas ku saabsan xuduudda iyo xiisadda ka taagan taas waxay ahayd midaan rabnay in marka hore laga wada hadlo inta aan loo gudbin wax kale